السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الميلول باد joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Deberani Show oo toddobaadkan ka imanaya Gaalkacyo. Waxa barnaamijka marti ku ah gudoomiyaha degmada Maxamuud Yaasiin Tumay waa duqa Gaalkacyo. Waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada kala duwan ee reer Gaalkacyo. Aad baan idiga mahadcelinaynaa. Deberani Show waxa barnaamijkan kala shaqeynaysa hay'ad oo ah hay'ad cilmi baaris iyo daraasaadka siyaasadda Soomaaliya ka shaqeysa oo meelo kala duwan ka hawlgasha. Waxaan barnaamijka ujeedkiisa uu yahay isla xisaabtan ku dheehan hufnaan isweydiin wacyi iyo iswargelin. Ujeedkuna uu yahay inay bulshada Gaalkacyo ay kula xisaabtamaan gudoomiyahooda. Inta barnaamijku socdo waxa jiri doona in su'aalaha hordhaca ma laga reebo in su'aalo kale ay ka yimaadaan bulshada iyadoo qof kasta uu fursad u helo ka faa'iideysanayo su'aasha ugu muhiimsan ay la tahay inuu sida ugu fiican u dhigi doono. aad baan kuugu mahadcelinaynaa gudoomiye Maxamuud Yaasiin Axmed Tumay. waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad nasiisay iyo inaad la hadashay Deberani Show oo Gaalkacyo maamulkeeda iyo bulshadeeda wada hadlaysiinaya caawa. dad badan baa laga yaabaa inay ku yaqaanaan oo barnaamijkan daawanaya oo laga yaabo hadda in TV-ga hor fadhiyaan ama hadhowta ay Facebook ka daawadaan ama qaybta falcelinta kaga hadlaan. Tumay waa qof noocee ah. waxaan rabnaa inaad markaba noo sheegtid khibradahaaga shaqo iyo waxbarasho ee kala duwan soo martay adoo waliba aad u soo koobaya oo soo gaarsiinaya xilka amaanta haysid. bismillah alxamdulillah suma salaatu salaam ala rasuulillah. marka waxaan salaamayaa jaamacadda Deberani iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa jaamac barnaamijkan quruxda badan oo runtii soo agaasimay iyo sidii uu noogu dooray. runtii aad baan soo dhaweynayaa dad ka soo qayb galana runtii aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ay noo soo horeen. aniga ahaan runtii barnaamijkan farxad gaar ah iyo dareen gaar ah leeyahay. waxaan kaloo ku faraxsanahay sida inta ogahay in maayarka ugu horeeyay ahay oo barnaamijkan hadda ku fadhiyo farxad gaar ah leedahay. markii aan aad baan u jeclaa runtii dadka maanta jaamac mar uga hadlayay xal barnaamijkan oo ama saakay ahayd qaybta su'aalaha iyo waxaas isku dayay in ugu dajiyo ugu qanciyana barnaamijka ka soo qayb galo. waxaan ku yiri su'aalo wax kasta in la weydiiyaan jeclahay waan ku yiri. haddii aan soo koobo taariikhdayda aniga kolleyde dadka inta badan waa isnaqaanaa laakiin markaan ka soo bilaabo dhinaca waxbarashada hoose dhexe inta badan waxaan ku soo qaatay Ethiopia ilaa iyo dhamaystir secondary-ga iyo jaamacadda heer koowaadna waxaan ku soo qaatay Hindiya. jaamacadda heerka labaadna waxaan ku qaatay Belgium ama Europe. dhinaca shaqada markaan iraahdo shaqada waxaan ka bilaabay dowladda federaalka madaxtooyada ka bilaabay oo aan ka soo kala ahaa agaasime kala duwan ilaa iyo markii dambe aan ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada Baydhabo. kadib waxaan ku soo laabtay Puntland markii dowladdii madaxweyne oo hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf ay meesha ka baxday. halkaan aan joogay hay'ado kala duwan baa la shaqeynayay oo ay inta aad garanaysaan ay ugu muhiimsanayd Relief International. isla intaan hay'adaha u shaqeynayay ka bacdi barnaamij oo diblomaasiyadda ayaa la soo bandhigay. ka bacdina waxaan ku biiray diblomaasiyadda oo aan ka ahaa xogayaha joogtada Affairs Secretary ama xogayaha koowaad safaaradda Roma ee Soomaaliya. kadibna waxaan u wareegay safaaradda Belgium-ka aan qasuulka ahaa European Union EU iyo waxa isku haysta safaaradda iyo safaaradda Soomaaliya labadaas boos bay isku yihiin. 2006 waxaan ku soo noqday anoo wali diblomaasiyadda ka tirsan laakiin markaas ka tanaasulay waxaan ku soo noqday Gaalkacyo oo aan shaqada hadda hayo ka bilaabo. waxyaalaha marka aniga kuma ahay la yiraahdo falaqeyn kala raacaysa. ana waxaan dhihi karaa waxaan ahay qof dabeecad badan dulqaad badan wixii kale oo
dhaliilana kole idinka garanayo oo waxa la rabaa idinka aad caawina weydiisaan weeye aad iyo aad u mahadsantahay aad baa mahadsantahay gudoomiye kaga mahad celinayna saa soo koobtay tumay inta aad xilka haysay iyadana bal in yar nooga sheeg aad u soo koob maxay kula tahay maamulka degmada markaad ku soo biirtay oo aad halkan hoggaanka la wareegtay waxa qabatay iyo fursadaha iyo caqabadaha bismillaah markii wax yar aan gudo galo hawshaas inaan duqa magaalada noqdo gaalkacyo anigu waxaan u arkay markii la fiirsho jaranjarada siyaasadda markii la fiirsho inta diblomaasi noqotay ilaa heer wadamada ugu sareeya waxay u dhigantaa inaad dib u soo noqotay laakiin sabab ay u kaliftay sababtu ka u kaliftay waxay ahayd waxaan arkay magaalada gaalkacyo inay tahay magaalo sii dhimanaysa sawaha u dhimanaysana ma aha inay tahay magaalo aan la korayn sidii magaalooyinka kale magaalo maxaan ku raadin sheeg aan dad xadaari joogin ama dad aan wax lagu baranayn ma ahayn magaalo iskool lahayn ma ahayn magaalo aan telefoon lahayn ma ahayn magaalo internet lahayn macnaha waxa la asaasiga ah dhan way lahayd laakiin hal qodob uu dhimanaysay qodobkaasna waxa ahaa qodobka amniga oo isugu jiray laba nooc midna wuxuu ahaa magaalada inay noqotay goob dagaal oo ay noqotay furin soo noqotay oo dhacdooyin xanuun badan ka dhacayeen waxa taa ka horeeyay oo ka xanuun badnaa inay ka dhacayeen in lagu laayay runtii dad badan oo muhiim ahaa oo magaalada indhihi u ahaa January 2016 ba halka imid markay imaanay hamiga ay ugu jireen xagee wax ka bilaabi doontaa wadanka balaaga khatar badan way jirto runtii bilaha intaan ka fakarayay maxaa wax laga bedeli karaa waxa kale ii muuqday waxay ahayd oo aniga aan isdhihi karay magaalada u baahan tahay waana ka fakaraysaa amniga ahayd waxyaalaha maalmaha la kulmay ama 3 bilood gudahood kula kulmay waxay ahayd in la dilay 3 qof oo runtii ninkii ugu horeeyay gaadira la naxariistay wax lagu dilay hotelka hoos anoo meel fadhiya la soo sheegay waxaan isdhahay niyadii wax soo galo kuwaad waxay dhahay waliga ku fikir la dilayo macna qof geeri u leeyahay laakiin niyadii kuma jirin waxaan niyadii ka sii fakarayay oo ma qof kala haray oo gaalkacay lagu dili doono muhiim ah Allah u naxariistay Umar Dheere markii la dilay waxaan dhahay magaalada dadkan oo cadawga dadka leynaya iyaga naga badiyo qofka muhiimka ah adigu dadka muhiimka ma taqaanin macna waxa xaqiiqo qofka adigu marka la joogto qofka muhiimka ma taqaan laakiin marka weyd ba garanaysa dhacdada saddexaad waxaan sii marka ma ba garanayso qofka saddexaad laakiin qof saddexaad muhiim waa hara dhudi Allah u naxariistay la dilay aqoon uma lahayn laakiin Umar Dheere iyo gaad yar aqoon baa lahaa laakiin markay dhimatay ka bacdi waxaan dareemay runtii miisaanka iyo jiritaanka dadka kulaha labada dhacdo way iskaabayeen oo dhacdan ahayd markii dadkii muhiimka la laayay intii muhiimka waa carareen magaalada ka tageen 10 sano oo la leeyay runtii talabaada ku siyaada waxay ahayd in magaalada ay ka dhacaysay dagaal sanadlaah oo markii dambe loo bixiyay xagaabax oo waxbarashadii ay gaadhay in mararka qaadkood la yiraahdo November baa soo dhaway October imtixaanka la soo hormariyay marxalad noocaas ah gaadhay marka dadka dabaqadii hore way tagtay tii labaadna way tagtay way tagays waxa ku xigo soo xaaladna la garanaya marka haddii aan soo koobo marka waxyaalihii soo maray ama soo dhacay su'aasha loo ka dhigi kartaa waa ku dari kartaa haddaan ku daro waxyaalihii aan la soo kulmay waxaa ka mid ahaa hamigayga marka hore maalintii la dooranayay hadal 3 eray baan waxqabadkii ugu hormariyay hamigayguna ahaa waxaan ku qodob koowaad amniga magaalada ka shaqeynaya qodobka labaadna waxaan ku yiri amniga magaalada ka shaqeynaya qodobka saddexaadna waxaan amniga magaalada ka shaqeynaya waa markii khudbadda doorashada ku jiray anigoo ogaa markaasna qofka binaanka inuu wax qaban karo laakiin doorka aan ku leeyahay amniga ay ahayd wax kooban markii la yiraahdo duq magaalada laakiin hay'ado badan oo ka muhiimsan ay joogaan magaalada haddana waxaan soo arkay inay tahay wax qof kasta ka shaqeyn kara xitaa soo kaligiis marka shaqadii ugu horeysay oo arintaas waxaan ka bilaabay inaan barnaamijka magaalada
asbuucii labaad kii koowaad iyo kii labaad inaan barnaamij xaafadeyn iyo ciidan madani in la sameeyo inaan ka bilowno iyo roondada magaalada la xoojiyo barnaamijkaasi muhiimaddiisa ugu weyneed marka afbarberi socday anigana markaa doorashadii 3 asbuuc laga soo wareegay waxaa dhacday subaxyada ka mid ah in lagu talagalay annaga waxa dawladda hoose ka shaqeeyo ama xildhibaan ha ahaadeen ama shaqaalaha ha ahaadeen ciidan ha ahaadeen in la tirtiro laakiin ilaaha qadartiisa ma dhicin oo maalintii meesha waa ku shiri jireen laakiin waqtiyada ugu dambeysay wax bedelanay kulanka sida adinku ogtiin waxa dhacay meeshii in burburkii oo ka dhacay saameynta uu ugu yeeshay runtii waxay ka mid ahaa oo ugu muhiimsan haddaan dul maro waxaan weyn horta ciidan dawladda hoose ciidan bay lahayd oo amnigan ka qaadan jiray saddexdii sargaal ugu sareysay oo saddexdii taliyo ay meesha walahayd saddexdu meesha ku dhinteen 14 ka mid ah askartiina waa ku dhimatay shaqaalaha waliba qaybaha dakhliga kii ugu muhiimsanaa waliba Puntland oo dhan ka sheeganaana meesha ku dhintay dhaawac runtii dhowr iyo 20 ah oo si walba u kala dhibanna kuna soo gaareen waxaan weynay dhismihii dawladda hoose kabiyahantiis waxaan weynay dukumiinti waxaan weynay gaadiidka qayb ka mid ah waxaan weynay qalabka xafiiska subax baan anagoo sidii geed la gooyay oo kala waxaan u hayaan inaan xarun cusub sameeyno xarun cusub aan sameeyno waxaan noo raacay anigoo ahaa shaqada inaan ku cusbaa golaha deegaanka shaqada ku cusbaa agaasimayaashii 18 sano oo dawladda hoose soo shaqeynay iyaguna inay iga horeeyeen aniga bedelkooda oo asbuuc ka hor intaan shaqada imaan la bedelay waxaan sugu nimid anigoo cusub xogayo cusub agaasimayaasha cusub golaha deegaanka cusub iyo meesha aan degano cusub iyo dukumiintiga ku shaqeynayno cusub waxaan noqotay bankaabuur inaan noqono caqabadii barbar soo wax ka mid ahaa maalintii wax lagu wareejiyay deyn adigu cadadkeeda ku dhawaad lacag 1 milyan oo meerada igu horeeyay soo bedelayeen maalintii waxaan ku yiraahdo saxiix meeyo lacagtan waayo waxaan ku yiri lacagtan saxiixeeda baa waqtiga dhamaanaya bixinteeda marka ma saxiixayaan ku la wareegmay waa diiday laakiin hadda qof lacag uu leeyahay adigu ama saxiix mar walba leeyahay waxa qabad mar walba meesha taalay waxa intaas barbar socday oo asbuuciyo kadib sana dhacay magaaladii dagaal inay gashay dagaalkaas oo 6 bilood qaatay saameynta ugu badan oo yeeshay markii burburka laga reebo dadka ku dhimanaya ama barakaca dhaqaalihii buu curyaamiyay waliba gaar ahaan farsamooyinka dhacay waxa ka mid ahaa in baabuurta magaalada banaankeeda lagu celinayay oo magaaladana lagu xiray la kala xiray oo aan gaari gudbi karin xitaa baqaarada dhinaca soo aan gaari gudbi karin waxay noqotay baabuur ka timid Boosaaso oo magaalada xitaa qaarkood u rarnaa inay 25 bir la taagnaadeen khilaaf in magaalada soo galaan in kala dirtiisiyo loo diidan yahay inay baabuurtaasi gudbaan ama cid kale ka faa'iideysto colaadaasi saameynteedii iyo abaartii oo runtii yana saameyn weyn ku lahayd wadanka guud ahaan marka iskaashadeen waxa ka soo bixi karay ama runtii in laga badbaado inay adkeed qof kasta oo aqal leh ama aqoon lagu garan karaa haddana waxaan dhigi karaa marka caqabadahaas oo dhan dhacayeen waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan la curiyaamin waxa ka mid ahaa dadka mar haddii colaad iyo abaar timid waxa ugu horeeyay oo markii xoogga saaray ama sidii kale waxa ka qaban kartaa waxay ahayd mideynta dadka in aan lagu kala harin dhibtan jirta lagu qaybsado oo la isku raaco wax weyn been waxa ka bedeshay marka wixii jiray ama colaad ha ahaadeen ama ha ahaadeen waxaan ahayd markii ugu horeysay oo maleynaya ay dhacdo dadku inay israacaan waxa kale oo barbar socday oo dhacay suuqa xeradayax waxa laga dhiso marka igu horeeyay 100 guri aan la furin ya 40 guri oo maalmaha la bilaabay oo dawladdu dhisaysay waliba dhismadeeda dawladda dhexe gacanta kuma hayn laakiin deyn bay ahayd oo dawladda dhexe iyo dawladda hoose la rabeen iska kaashadaan waxa dhacday 40 guri oo intii laga bilaaban waa burburtay 100 guri hore u dhisnaana oo la rabay in la qaybino waa burbureen waxa sidoo kale la burburay
isbitaalka guud guddi baa la sameeyay guddigaas markii hore waxa looga dooday in loo qaybiyo dawladda hoose macnaha dhismaheeda ka qayb qaadashadeeda gurmadkeeda isbitaalka guud lacagtaas helno 200 kun oo ugu horeeyay inaan helno ku guulaysanay si degdeg ah oo noo noqonaysa niyad markii taasi dhacday guriyihii burbursanaa oo boqolka guri ahaa iyo moolal 8 mool ah oo kan ugu horeeyo Westgate oo xirdiyaha laga geliyo oo dadkii ku dhacay waxay noqotay in ay niyad xumo tahay ama farxad cadowga tahay horta shaqada in la qabto maaha in san xal kale magaalada la bilaabi karin waxaanu dib u xallinay boqolkii guri iyo 41 guri oo iyana dad hore lacag loo qaadanay naga horeeyay loogu daray in 141 guri dib u dhisno waqti kooban oo bil ka bacdi ah sidoo kale waxaan la tacaalay oo runtii waqti dheer nagu qaatay laakiin afartii mool ugu horeysay aan dayactirnay moolasho weyn oo hadda xirdiyaha ka dhisan laakiin ilaa hadda kuwa ugu dambeeya dhisnayna way jireen isla xirdiyaha waxa kale noo qabsoomay dhinaca mashaariicda markii la yiraahdo suuqa qudaarta macaan oo xirdiyaha ka dhisan laba laami oo JBLG aan ka helnay afar health post oo gudood gobsho dhagxayacado iyo teeraga noo kala dhisan waxaan sidoo kale ka helnay barnaamijkaas 5 iskool oo waaweyn inaan ka dayactirno 5 MCH inaan ka dayactirno sidoo kale waxa la iska wax qabsada iyana ka socda waxa kamid ah laamiga dhaxmara xirdiyaha laamigaasna waxa dhistay ganacsatada waxa socda hadda laamiga dhaxmara ka soo baxa Aljazeera waasoo hadda gabagaba laamiga 150 Aljazeera iska leh 125 dawladda hoose 125 shirkadda dhisaysa Elgar baabixinaysa sidoo kale waxaan noo qabsoomay barnaamij dhirayn ah oo midka ugu horeeyay laamigan weyn laga soo bilaabo Sugulle ilaa soo barwaaqo oo ay naga caawisay hay'adda BSF iyo dhiraynta aeroboortka oo aan ka helnay mashaariicda JBLG sidoo kale waxa hadda gabagaboobay oo la sugayaa qaboojiyaashii ku teenrada laba xaba suuqa kalluunka oo asna xirdiyaha laga dhisay oo la dhigi doono laba container oo waaweyn oo loogu talagalay ganacsatada ku ganacsata kalluunka oo meelaha macnaha ku dhiban hadda ka ganacsigooda in ay helaan meelaha ay loogu qaboojiyo loogu keydiyo kalluunkaasna xaruntiisa wax laga dhisayaa iyo qaboojiyo kale looga sameeyaa garacad farmaajo aad u wanaagsan magaalada soo dhacmaray oo dadkeeda arkay hadalka ugu horeeyay oo yiri waxay ahayd gaalkacyo hadii wax badan la igu celcelin lahaa la igu sheekeen lahaa oo saas tahay qaabkaas ta la dhigi lahaa la igu dhacsiiyeen waayo fikirka ka haystay meesha joogay buu yiri waa meel yar oo waxaan ka haystay buu yiri muddo dagaal ka dhacay burbursan laakiin wuxuu yiri waxaan arkay magaalo caasimadda Muqdisho ku soo xigtay yiri waxa la yaabanahay yiri magaalada intaas dagaal ka socday hadii saa u dhismayso hadii sanado ay noqoto nabadgelyo seebay noqonaysaa buu ugu dambeyntii waxaan ku soo guraanadayaa oo ugu dambaysa waxay tahay waxyaalaha aan niyadeyda ka guuxi jiray waxay ahaayeen inaan arko awoodda dhalinyarada oo runtii kacday oo aragtay awooddeeda waxqabsigeeda aragtay barnaamij hadda la yiraahdo oo Puntland ka jira waliba Soomaaliya qaybadeeda kale hadda sii maraya oo xilqaamayaasha la yiraahdo waxaan fikiray in la sameeyo barnaamijkaas waxaan ugu yeeray bilowgii hore 7 qof meelahaas ahayn baan malaynayaa haddii aan dhalinyarada ka fiiriyo caawa inta joogta dadkii aan barnaamijka u soo bandhigay u yeeray waxa ii muuqda Jaafar baa iga muuqda caawa waxay ahaayeen 7 qof meelahaas ahayn runtii aan u soo bandhigay waa isla qaadanay dhalinyaro badan oo runtii
haddana dibna hal abuur fiican ka yeelatay oo barnaamijka nooga xoog badnaatay dhaqaajintiisa hadda waxa iga muuqday Mustafa Xaarin iyo iga muuqday oo aantii dadkii loo xilsaaray inaga xigtay laakiin dhaqaajintii aan sameynay hal wax waa lagu kala duwanaa waxa lagu kala duwanaa barnaamijkii marka la dhaqaajinayay aan waxaan ku yiri gadaal baa idinka taagnaanaya laakiin yaan lagu arko waan isla qaadana waxaan u sameynayna waxay ahayd haddii loo arko dhalinyaro shaqaynaysa oo la shaqaynaysa duq waxa loo arkayaa asagu inuu isku soo saarayo laakiin anagu muhiimadda ka rabnay waxay ahayd dadka inay magaalada u arkaan in loo kacay waxaa dhacday shaqada ugu horreysay markaan hameenkooda qorsheynay oo qabanay maalintii marka shaqada la dhameeyay in la yeerayo aan ka hadlay markii ka dambeysana sida aan uga gaabsaday laakiin aan isla ogeyn waxaan ujeedku wuxuu ahaa dadku inay u arkaan inay iyagu wax qabsanayaan inaan loo arag in qof gaar ah ku danaysanayo dadkan siinayna su'aalaha laakiin gudoomiye waxaad sheegtay waxyaabo badan oo qaybtoodna ka horeeyeen maamuladii hore ka shaqeeyeen qaybtoodna adigu ku lug lahayd waxa kamid ah oo kale dhismayaasha wadooyinka oo mashruuca horumarinta degmooyinka qayb ka ah wadooyinka waxay ka dhisan yihiin meelaha qaar magaalada ay ka dhisan yihiin luqluqyadii ay marayaan wadooyinka qaar wadooyin kale kugu xirayaan laakiin idinku waxa taa sameeynaysan idinkoo arka inay dayacan tahay wadadii weyneed ee halbowlaha ahayd ee magaalada dhex maraysay ma awoodi weydeen laba wado oo yaryar oo nooca dhuudhuuban ee meelaha mara inta budgetkooda isku celcelisaan ina wadada weyn ku dayactirtaan sababtoo ah wadada weyn ee halbowlaha uu agaalkacayo ayaa bixinaysa muuqaalka gaalkacayo magaalada nooca waaye wadadii waa wada weyn leeyadkii hareeraha kaga xiran istiraadiyadii baa ku yaala xarumihii dukaameysiga ku yaala goobii loo dalxiis tagaya ku yaala hadda wadadii burbursan tahay si kastoo dadku u maalgashtaan hareeraha wadada way adkaanaysaa inaynu iibino magaalada gudaheeda iyo sida bilicda magaalada ma awoodi weydeen inaad mashaariic GBLG mid ama laba u joojisaan in godadka iyo wadada meelaha jajaban la hagaajiyo taweyn ee halbowla ah haddii ay taasi idin dhaaftay hadda qorshe ma jira aad magaalada inta wadada ku hagaajinaysaan aad iyo aad u mahadsantahay su'aal muhiim weeye sidoo horta marka la yiraahdo mashaariicda aan helno marka la dhaho waxa oo wadooyinka laba mashruuc oo mid waliba hadda socon laakiin soo socdo hadda gaab galay oo marka hore TIS la oran jiray laakiin hadda TIS plus la yiraahdo oo dhisay gaalkacay marka la yiraahdo wadadan dheer oo airportka aada iyo wadadii dagaal ka dhici jiray oo durdur oo qayb ku lahaa marka laga reebo mashruuca TIS mashaariic kale oo soo raacday waxay ahayd waa JBLG-na nidaam buu leeyahay waxa weeye markuu wada cusub wada dhisayo nidaamku degan wuxuu leeyahay waxaan dhisaynaa wada banka abuura si waxaan qabananaa aysan u noqon dayactir oo wax hore u jiray asama magaciigu fuulna meel ana ugu darsanay meel sacan ka abuurno laakiin arrintaas muddo aan daba joogay isla JBLG-ga barnaamijkii waxaan u tusay in laga dhigo dayactir laga dhigo marka hadda waxaan u soo helay oo aan asbuucan la soo deyn doonaa hadda waxa dhex galay iyadoo la sii deyn rabo wax dhex galay wixii la oran jiray Christmaska waxa dhex galay iyadoo lacagta la soo deyn rabo marka waxaan u haysanaa hadda lacag 110,000 oo loogu talagalay iyagoo dayactir ugu talagaleen laakiin qaab kale aan ugu fakarnay lacagta 110,000 marka la soo daayo haddii la haydmo qorshahan qorshaysan waxa ismada ka wada hadalnay ganacsadana ka wada hadalnay dhalinyaradana ka wada hadalnay lacagta 100,000 faa'iido aan haysano kuwaad waxay tahay lama siinayo shirkad oo sida loogu talagalin wuxuu noqonayaa mashruuc tijaabo ah oo lagu tijaabinayo dawladda hoose inay iyadu fuliso marka fursadda ugu faa'iideysan waxay tahay sida mashruuca cawaalo loo wado waxaan rabnaa inta akoon lacagta ku shubno ganacsatada waa ka wada hadalnay iyo ismada inta dadka dhex kan dhahno wixii ka dhiman wadadeena ku darsano iyana waxay dhici doontaa asbuuca laba asbuuc ka bacdi insha Allah aye yaa ugu horeynaya fataaga ninkan odaygaasi wiil iyo gabadh saar isku idaarinaya halkan istaag mikrofoon ka qabso magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxaan ka socdaa ururka dhalinyarada islaqaamayaasha hormuudka horumarka gudoomiyaha iyo dhammaan jaamacadda Baraani iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qof walba meeqaamka uu ku fadhiyaa meesha ku salaamaya salaan kadib duqa degmada laba arimood mid waa bogaadin iyo hambalyo waxaan ku bogaadinayaa doorka muhiimka ah oo ka qaatay dhalinyarada waxaan u maleynayaa inuu leeyahay gudoomiye ugu horeeyay ama duqa ugu horeeyay oo nasiib u yeesha
inuu helo awoodda dhalinyarada abaabula mideeya dhalinyaradii hadday noqoto isxilqaamayaal hadday noqoto nabad dhinac walba midda labaad su-aal baan guddoomiyaha weydiinaya su-aashada waxay tahay bishii agoost 2017 ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu ku dhawaaqay lacag 2 milyan oo loo qoondeeyay shaqo abuurka dhalinyarada lacagta dawladda Puntland $700,000 bay qayb u yeelatay lacagta shaqo abuurka dhalinyarada degmada Gaalkacyo xuquuqda u lahayd ma soo gaartay haddaysan soo gaarin maxaa u raadin weyday oo billahi tawfiiq magacaygu waa Lisa Cabdullaahi Aadan waxaan ka socdaa radio Gaalkacyo waxaan wadaa su'aal iyo bogaadin haddii aan bogaadintu horumariyo gudoomiyaha waa ku bogaadinayaa kaalinta uu ka qaatay isdhexgalka dhalinyarada magaalada Gaalkacyo hadday ahaan lahayd labada dhinacba ta kale tallaabada uu ka qaaday amniga magaalada Gaalkacyo oo quus taagan oo runtii rajadii dhalinyarada iyo dhammaan rajadii Gaalkacyo uu soo celiyay iyadoo sanad walba la xagaa bixi jiray 2017 uu noogu dhamaaday si nabad ah taasina uu ku mahadsan yahay waa salaamaya dhammaan bulshada reer Gaalkacyo iyo Dabrani Show iyo bahda Somali Cable TV iyo duqa degmada Gaalkacyo Mudane Maxamed Yaasiin Tume su'aasheeda haddii aan gudbo gudoomiye suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo waxa ku ganacsada dad danyar ah ciidanka dawladda hoose waxay ka qaadaan canshuur marka ciidanka dawladda hoose markay canshuurta qaadayaan waxay u dhaqmaan dadkaasi si arxan darro ah maxaa qorshayaal oo inaga degsan maxaa wax looga qaban lahayd qoondada lacagta intii gaartay Gaalkacyo dhalinyaradeeda iyo gobolka iyo sida ay ula dhaqmaan ciidamada cashuurta qaada shacabka bismillah haddaan ku hormaro su'aasha koowaad oo ahayd lacagtan 1 milyan iyo 700 intay noqotaba xilliga uu sheegay oo August runtii de kullu waxa ugu horeeyay ahayd lacagtaas waxa la inteeda ma maqan nama soo gaarin markii si la yiraahdana hay'ada kala duwan oo wasaaradaha Puntland baa naga shaqo leh raadinteeda hadii ahaynna anigu waxaan xog ka hay ma ahayn waa ii hadalkan caaw maqlayo way soo gaaritaanna wax naga soo gaaray ilaa ay hadda ma jirto laakiin haddii ay sidaa u sheegtay u jirto haddii aan raadsanayna waxay nooga maqan tahay oo u dabagelinaa hadii lahayd su'aasha ah canshuurta dawladda hoose oo askarta qaadaan markii aan si qalbi xaaran la hadlo maalintii ugu horeysay oo aan dawladda hoose imid subaxii ugu horeeyay oo aan imid horta waxaan ku yiri hadalkan u bilaabo wuxuu ahaa ilaahay laga boqo salaada hal la tukado way la yahay waxaan duqyaasha ugu horeeyay wax naga hadli jireen canshuurta adiga maxay naga hadlaysaa indhahay waxay qabteen rag dawladda hoose ka mid ahaa oo runtii marka idinku sida banaanka u joogtaan as dhigi jiray kuwan hadda mar meesha tagi leedahay ka saari lahayd baan dhigi jiray laakiin duruufo waxaa jira runtii kuwa khasbay qaarkood raggaas intaan imaan maayiradii hore rag igala dardaarmeen baa ka mid ahaa oo ay dhaheen Cabdiraxmaan Xaaji Xasan baa ka mid ahaa wuxuu yiri rag meesha ka mid ah marka imaanay iyaga dagaalkii ugu badan iyo ku jahanaabi laakiin wuxuu yiri waxay noqotay in aanu si gaar ah u dhaqaaleeyo raggaas oo meesha ku hayo waxa la keenay waxa ka mid ah markii ciidanka dawladda hoose xaqiiqdii waxa weeye waxay u baahan yihiin in wax badan laga bedelo sababtoo ah ciidanka dawladda hoose qaabka u samaysan yihiin waa qaab duruufeed weeye waa ciidan 100 gaaraya oo hubeysan oo haddana booliis ahayn ciidan booliisana wax loogu talagalay sideeda inuu hubeysan yahay ciidanka milishiibiyada wax loogu talagalay calaamad inay leeyihiin canshuurtana ku qaadaan laakiin sababta ka liftay oo loo abuuray maayarkii ugu horeeyay Xuseen Jaamac Allah u naxariistay baa abuuray sababtu uu abuurayna waxay ahayd wuxuu waayay ciddii ka xigsan lahayd diidmada canshuurta ama cidda soo qaadi lahayd marka taas waxay sababtay sida ciidan ahaan marka la yiraahdo waxa uu ku fiican yahay waxay tahay sida ciidanka milishiibiyada calaamad ku qaada kaliya haddii wax ku soo istaagana booliisku inuu ku qaado marka waxaan dhigi karaa waxay ku abuurmeen waxa weeye waa dayac ka yimid dhinaca booliiska weeye kaalintooda buuxin waayay marka koowaad iyo duruufta magaalada oo qof walba qorgiis garab ku suran yahay qofkii 5 kun laga qaadaya asagoo laga yaabo kawarka hoostiisa inuu jiro bastoolad ugu jirto ama waaka ugu jiro
taasa horta keenaysa caqabad ugu badan laakiin dadka suuqa fariista oo runtii saas loo dhaqmay wax wanaagsan ma aha wax ka qabashadeeduna waxay u baahan tahay wax sahlan ma aha waxa idin sheegaya askari dawladda hadii la bedelayo waxa ku imaanaysa jifidhan wala wasiirkeedii xildhibaankeedii waddoonkeedii isimkeedii wadato wallahi ku imaanaysa billahi waana ugu dhacday mar waxa ku talagashaan wax kasto laga bedelayo wax sahlan inaysan ahayn waayahay haye su'aasha toos u abaar magacaygu waa maxamed cabdiqaadir cali cigaal waxaan ka tirsanaa dhalinyarada isxilqaamayaasha hormuudka horumarka marka koowaad dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayaa kulka qiimaha badan iyo maqaamka gaalkacyo aa u yeesheen habeenadan sidoo kale jaamaca ugu mahadcelinaynaa fursaddan inuu na siiyo gudoomiyaha tumey marka koowaad waxaan ku ammaanayaa shaqada geesinimada leh ee uu qabtay gaar ahaan kumanaan dhalinyaraha ee Soomaaliyeed inuu jiheeyay hadafka uu keenay ee ah isxilqaamida shaqadii gaalkacyo ka bilaabatay ilaa meelaha ay gaarto Mareysan haddaan gudoogal su'aasheeda mudana gudoomiye habeenadan iyo waayihii la soo dhaafay maxay dadka gaalkacyo aad uga cabanayaan dhalinyaro istoolada iyo tooroyo ku hubeysan oo dhamaantood dadkii furanaya mobilada awal waxay ahayd fiidkii hore hadda waxaa la gaaray galabkii wixii loo soo gaaray shanta in dhalinyaradii iyo gabdhihii xaafadaha ay dukaamaysan lahayn magaaladana khatar arinta leegay ka jirto maxaa ka qorshaysan arinta maxaa soo xoog qaban laadiin bismillaah dhamaantiin waan salaamayaa ugu horeeyo duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumay iyo barnaamijka The Barnaamij Show oo ku mahadsan yihiin sida ay magaalada gaalkacyo nalka ugu shideen su'aashaan weydiinayo waxa weeye duqa mudane gudoomiye magaalada gaalkacyo waxa laga fuliyaa mashaariic badan sida ognahay waxa bixiya hay'adaha deeq bixiyaasha dawladda hoose maalin walba waxay qaadaa canshuur ma jira hal mashruuc oo noo sheegi kartid oo canshuurta shacabka gaalkacyo aad ka soo aruuriseen aad ku fuliseen waa mahadsantihiin haddii aan ku hormaro su'aasha koowaad dhalinyarada hubeysan iyo amniga xaafadaha waa run weeye waa wax soo badanaya weeye laakiin waqti adigu asbuuc loo asbuuc ka hor waxa jirtay in la magacaabay taliye qaybeed cusub oo isku day markaas runtii aan ku wadnay inaan wax kaga qabanno ay ahayd laakiin ciladu waxay ka timid taliyihii iyo qaabkii markii istiraatiijiyada aan rabnay in wax ku sugno waa waxa dhacday taliyihii in arrin dhacdo ka dhacday degmo kale oo Bursaalax asagoo shaqada ku cusub in ay halkaas ku maqnaayeen asaga iyo ciidankii la rabay inay shaqadan qabtaan maalmahaanu soo noqday ilaa iyo brigalab baan waxaan ballansanahay qofkii raba ka soo qayb gali karaa xaafadaha iyo booliiska iyo saldhigga waxaa kaloo ku hoos jira barnaamijkaas in la qabto barnaamijyadii horey la isugu dayay oo runtii ahaa xaafadeynta iyo madanigiisii lagu soo celin lahaa marka qofkii danaynaya oo ciyaalka yararka dhibeen bari taladiisa laga rabaa inuu meesha yimaado su'aasha kale oo ah mashaariicda ay dawladda hoose qabatay ama canshuurta loo qaado waxaan horta idin sheegayaa mashaariicdan JBLG marka la yiraahdo boqolkiiba 5 dawladda hoose bixisa sidoo kale waxaan hadda hadalkay ku jiray inaan xusay wadda hadda la sameeyay boqolkiiba 25 bixinayno marka ma jira ilaa iyo hadda laami intaan sameynay la dhigi karo laamiga dawladda hoose sameeyay laakiin waxaan u maleynayaa in waddanka oo dhan ka jirina waxa degmada gaalkacyo kaliya aysan ahayn marka waxa ugu daran oo waxa curiyaaminayna waxa weeye kharashka ka baxaya dawladda hoose oo running cost-ga ku baxaya ama waxyaalaha dhibta badan oo ay la tacaalayso iyo inay mashaariic ay u gudubto baan islahayn sida xaqiiqda marka la wajahana waqti bay qaadanaysaa in mashaariic intay dawladda hoose samayso ay ku guuleysato ay waddankeeda hanato waxay ku xiran tahay in dawladda dhexe ay waddanka hanato la wareegto sidii wadamada isku macnaha hormaray soo koraya waagay gaaraan baa taadil gaari doonaa laakiin haddii aad riyadinu tahay isla gaalkacyo waxay gaari doontaa ama degmo lamid ah waxay gaari doontaa isku tashi ah inay caafimaadkeeda xeeda daboolato magaalooyinka ka waaweyn ama dawladaha ka waaweyn oo Afrikada ama wadamada soo koraya baa loo sameeyaa wadooyinka isli baan u hadda joogay
xilliga jaamaca inuu joogo umalanaya laftiisa isku arki jirnay wadooyinka isla laga samayn jiray waxaan umaleeyaa Israa'iil iyo ka fangareynayay Kenya oo wadada dhexdeeda u sameynayay marka insha Allah waa gaari doonaa laakiin silsilada isku xirxiran baa jira oo la rabo in idinku wadankeena ku horumarsataan su-aashayda haddaan u gadagalo duqa waxaan leeyahay mudane magaaladan way ballaaran tahay xajmigeeda iyo dadka ku noolnahay sidaas lamida way ballaaran yihiin kamana maaranto dabdamis sidaan ognahay waxay u baahan tahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo ka badan waxa la qabanayaana waxay noqonayaan haddii aan la helin dabdamis meelaha la ogtihiin dayaca ka jira xagga wajada iyo haddii marka ay arrintaas waxa kale ay jirto maxaa degmadan u diiday caasimadda koowaad iyo caasimadda labaad iyo midda saddexaad waxa ka horeysa horta maxay kula tartamaysaa ee facility ay sitaan marka dadkan waxay u baahan yihiin horta dabdamis maxaa inta aad joogtay muddada u diiday magaaladan dabdamis inay yeelato oo ah meelaha ugu muhiimsan oo umad lagu badbaadin karo dhaqaalaheeda iyo waxyaabaha muhiimka ah su-aasheeda labaad haddaan ku galo mudane gudoomiye waxaan ku weydiinayaa waxaa maqaalo nooga ah haddaan nahay dhalinyaro oo aad baan u dheernahay in mashruuca lagu dhisi lahaa garoonka Cawaale mashruuc lagu dhisi lahaa garoonka Cawaale si shakhsi ah ama shakhsiyaad ay ula wareegeen oo ay u geeyeen barnaamijkaasi hadda himilo marka barnaamijkaasna waa jeclaan lahay in la ka jaahay bixiyo sida ay wax u jiraan maxaa barnaamijkaas halkaa loo geeyey oo baahida gobolka meesha ay u qabanayaan oo gobolka ah loogu waxa kale yiraahdo loo siin waayo mashruucaas arrintaasna noo jilcisa waan jeclaan lahay waana mahadsantahay gudoomiye su'aalahan rabay inaan ku weydiiyo waxa kamid ah xaq dhaqaale ahaan baan wax u weydiinayaa gobolka Mudug wuxuu ku jiraa gobolada ugu wax soo saarka badan xagga marka la fiiriyo dakhliga dawladda hoosena waxaan oran karnaa waa waxa soo gala lacag aad u fara badan haddii la xisaabiyo dakhliga wax qabadka dawladda hoose markaan fiirino xagga mashaariicda iyo implementationkan marka warbixintaada laga dhageysto aad bay u kooban tahay ma oran karnaa marka accountability la'aan baa jirto corruption baa ku jira dawladda hoose taas ayaa waxay ragaadisay in wax badan oo muuqda dawladda hoose ay qabato la arki waayo waa su-aasheeda koowaad su-aasheeda labaad waxa weeye marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha gobolka waxa laga fiiriyaa waa kaabayaasha dhaqaalaha saan ognahay magaalada Qardho aad bay uga yar tahay magaalada Gaalkacyo dad ahaan iyo marka la fiiriyo dhismo ahaanba sidaa darteedna magaalada Qardho waxay ku amaanan tahay dawladooda hoose iyo dadkeedaba horumarka ballaaran ee gaarsiiyeen xagga kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka iyo laamiyada marka laga hadlo iyadoo laamigoodii maynka ahana uu nabad qabo marka ma oran karnaa waxa ku jirta kind of corruption baa ku jira dawladda hoose iyo xubnaheeda maadaama wixii loogu talagalay isku miisaaniyad bay wada heleen hadda Qardho tagtaan 15 laami baan ka tiriyay maalintii dhaweytaan tagay 15 laami oo wada niyu ah qaarna la dhagax dhigay ma oran karnaa marka qoondadii gobolka loogu talagalay siday tahay looma isticmaalin walaba su'aaladan jeclaan lahayn ku weydiin aad baan maasan arrinta waxaan rabaa hore ugu horeysa dabdamiska guud ahaan marka la yiraahdo magaalooyinka waaweyn ee Puntland cilada way qabaan way la tacaalayaan laakiin su'aasha dabdamis ma leenahay iyo maxaa dabdamis loo yeelan waayay iyo maxaa loo badan waayay laba su'aalood bakreeyeen dabdamiska Gaalkacyo waa leedahay gaari bay leedahay marka maxaa loo badan waayay waa su'aal u baahan runtii in la isweydiiyo laakiin ma ayna ka seexanay anaga dabdamiska hadda hal gaari baa yaala gaariga dabdamiska yaalana inta badan waxaan dhignaa gaari booyada oo aan ugu talagalnay in la gurmado tabartana keenis ina iibsano ama maxaan ku raadayay sheeg anagu jeebkeena ka dabarana daruufaha nagu xeeran baa keenaysa waan kaga duwanahay magaalooyinka waaweyn ee Puntland daruufaha nagu xeeran baa keenaysa in anagu jeebkeena ka gadan weyno laakiin insha Allah qorshayaal badan oo waxa jira ku raadinay qorshayaashaasna waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaan
waxyaalaha hadda laynu ku xeejiyey waxaa ka mid ah in aan xarun bandhig aan u samayno laakiin waxaan ku faraxsanahay inay xarun ay ka howlgalaan oo gaar hadda ay leeyihiin inkastoo sidii lagu talagalay dee markaa u fiirisid caalamka say uga jawaabaan dabdamiska aysan uga jawaabi doonin laakiin su-aasha horta ma leenna waa leenna laakiin waan ugu yeedhihiin wey arrinta cawaale marka la yidhaahdo arrintaas dareenka ninka dhalinyarada oo qabay runtii aad baan u qabi jiray cawaale marka la yidhaahdo runtii markaan ii sheego dadkii himilada cawaala ugu horreysay baan ka mid ahay waagii barnaamijka himilo la sameynayey waxaa jiray tartan aniga rag kale aan u galnay waan kula tartamaynay himilo qolada ka dhistay tartankaas dhalinyarada sportska cidii ka joogtaa caawa garan kartaa waxaan soo bandhignay inaan cawaale ka shaqeyno roog ka dhigno laakiin nasiib daro si aan dhihi karo sax maaha inkastoo aan rabo inaan cidna u gafo baa waxaa loo ka siiyey in la yidhaahdo qaabka himilo loo dhiso laakiin annagu bandhigayga wuxuu ahaa maanta himilada cawaale oo maraya ba dhisaynkaas kala soo bandhignay halkaasaan waxaan ku nidhi annagu waxaan gelinaynaa ii sheeg barnaamijkaas dareenka waagaasaan qabay anagoo cuqdadii qaba baa waxaa dhacday anigoo maayara waxaan kusoo beegmay furitaanka himilo maalinta marka la furayay dhalinyarada way joogtay inaa xasuustaan maqaan inta badan waa joogay marka la furayay anugu furi mayaan ku yidhi halla sheegaan ku yidhi ciddis kale cabaar dhan baa dhalinyaradu guduhu ku jiray dhan bannaan ku jiray ilaa iyo madaxweyne ku-xigeenka ilaahda la siiyey oo li madaxweyne ku-xigeenka saxiixa ka mid ahaa witnesska ahaa in mashruucaas ii sheeg wax nala ogaabay dhaheen calaa kulli xaal dhalinyarada laftooda la hadlo waxaan ku yidhi intaan la hadlay markaan furayey waa aqbalay madaxweyne ku-xigeenka u fur buu igu yidhi markaan u furay dhalinyarada la hadlo waxaan ku yidhi inaad idinku ka hadashaan ba xaq u leedihin annagoo idinku difaacno maadaama mashruuc idinku aad leedihin laakiin dhalinyarada laftooda cid raadinaysaa cid igu timidna ma arag cid maalinta weliba anoo si dee maxaan ku dhaha qayaxan uga hadlayna markii uga jawaabtay u guuxda ma jirin haddana saas ay tahay kama harin safarkii ugu dambeeyey madaxweynuhu yimid safarkii ka horreeyey laba safar isku dhow yahaayeen waa ka wada hadalno yaa iskale mashruucaas markii anoo madaxweynuhu anoo la fadhiyo wuxuu wacay wasiirka ciyaaraha dhalinyarada iyo sportsku wacay soo xaro biil intaas baa su-aal nagaga taagan tahay wasiirku u yimid magaalada wuxuu keenay heshiiskii idinkoo dhan meel aad joogtaana babliga baa naloo ku dhiibay heshiiskii oo ay dowladdu la gashay marka taasi waana wax naga horreeyey laakiin waa wax kolley mar haddii wuxuu haydi maamulasahay musuqmaasuq ka dhammaan maysahay arrinta haddaan usoo dego oo ah dhaqaalaha soo gelaya dowladda hoose iyo corruptionka meesha wadamada ugu horreeya adduunka waxaa la yidhahdaa boqolkiiba 5 boqolkiiba 10 boqolkiiba intaas la yidhahdaa wadamo weyn oo adduunka u qabtaan corruption ka jirin africa marka la yidhahdaa corruption intee jooga markii soomaaliya la yidhahdaa corruption intee dhigaya qiyaas markii gaalkacay la yidhaahdo oo nin walba qorigiisa garab ku saaran yahay oo shaqaynaya corruption muxuu noqon karaa boqolkiiba 70 noqon karaa isle haddana saas ay tahay su-aasha waxaa daba joogta mashaariicdii ka qaybgalka iyo mashaariicda ka qaybgalkeeda runtii wuxuu nagu yahay dhibaato aad u badan waayo boqolkiiba 5 markii lacag 5 boqol oo kan lagu soo daayo hal mar oo lagu yidhahdo boqolkiiba 5 ka qayb qaado waa garan ka dhan dhaqaalada isku dhufta intay lag tahay wax sahlan maaha midda kale boqolkiiba 5 inaa mashaariicda ka qayb qaadatid maaha inaan wax qaban maaha waxaa la qabto marka boqolkiiba 5 laga qayb qaato waxaa kale oo aan dhahayaa arrinta ah qardho iyo laamyadeeda qardho laba fursadood bay heshay weliba 3 fursadood bay heshay gaalkacyo horta waxaa garanaysaan JBLG goormuu ka bilowday wuxuu ka bilowday 2015 wuu ka bilowday sababta u hirgeli waayana waxay ahayd isqaqabsi inaga dhexdeena annaga reer gaalkacyoodka waa isnaqaanaa waxba kuma heshiin karno cirbahan nimba cirbita kaga istaagaa waxaan dhisan weynay golo deegaan intaas sano xujada inay haysatay golo deegaan bay ahayd oo 5 sano ina ku dhaaftay sanadka ugu dambeeyay miyaan ka faa'iideysana inaan helno shirkii BLG intaas oo sano inagu aynu ahayn golo deegaan laan ahayn magaalooyinka qardho waxay haysatay golo deegaan oo sanad kasta mashruuc ka faa'iideysanaysa waa mid jaaniska heshay jaaniska labaad ee heshana xogaa waxaa jiray la shaqayn waa jirtaa la shaqayn gaarna waa jirta furad ku heshay laakiin sanadka ugu dambeeyay anaga laftigeena si sad bursi loo shaqaynay marka xaqooda ay sheego JBLG oo barnaamijkan hadda wadada laamiga dhex mara 50-50 boosaasay iyo wuxuu gaalkacay laakiin
gaalkacyo loo leexiyey in boqolkiiba boqol la siiyo 50 iyo 50 buu ahaa in loo leexiyo ugu dambeyntii waxaan leeyahay arrinta ku sharaxaya laamiyada qardho waa meel yar weeye waxa uu faa'iideynaya laamiyada inay badato laamiga inaga hadda marka laga soo bilaabo kan aeroboortka ilaa iyo la geliyo xerdayax qardho saddex ka mid oo noocaas arkaysaa oo meel yar weeye marka waxa moodaa meel walba laamiga ku soo baxaya arrinta kale oo ah nidaamkeeda iyo baalkii aan waxa aaminsanahay magaalooyin kale waxay kaga duwan tahay qardho oo kale iyo waa naga dhaqaale yarta horta hor iyo ciladaas laakiin waxyaalo badan wax u fududeynaya waa magaalo marnaba amni iyo isku dhac iyo bidib aan ka fakarayn weeye marka fursadaas aad iyo aad u haysataa dul waxaa jira halkaana oo la baneeyay oo dawladdu ay banaysay oo loogu talagalay in xafiisyada dawli iyo waxyaabo maamulka la xiriira lagu sameeyo waxa lagu eegeynaya dhulkii in qaybta dib loo iibiyay siday ku dhacday hadday jirto inaad noo sheegtid waa jeclaan lahayn oo qaybtood guryihii gaar dib loo gaday arrintaasi gudoomiyey maxaad kaga jawaabaysaa idinta noocan sidee u dhacday hadday jirto see loo maamulay maxay tahay duruufta keeni kartaa dad meel laga kiciyay haddana in dib loo gado dhul horta sida u sheegaysid waxaa ka gedisan tahay dhul intii dad la siiyey dib loo iibiyey ma jiro laakiin dhul la iibiyey waa jiraan waxaa ka mid ah mid booliiska meeshiisa ku yaallay waxaa ka mid ah midkan kalaaska soo horjeeda waxaa ka mid ah midkii martida oo dowladda hoose meesha laga dhisay hadda qorax dhac ka ah dhulkaas ka mid ah dhulkaasna sababaha loo iibiyey duruufaha loo iibiyey waxaa ka mid ahaa burburkii guryaha idin sheegayey oo xerdayax marka hore 100 guryo laga sameeyey gurigii 2500 baa dawladdu ku heshiisay inay bixiso 100 guri 2500 marka lagu dhufto lacagta inta noqonayso lacag 200 iyo xogaa weeye marka waxaa dhacday 100 guri baa lagala tijabin jiray 100 guri waxa xerdayax laga dhisayaa oo maamulka hore waxaan ka hadlay 100 guri baa laga dhisayaa la yiri 100 guri baa laga dhisayaa markii 100 qofka waxa laga qaaday 100 waxa la qofka ha bixiya 2000 dawladuna ha ka dabarto 2500 ala qof guriga 4500 baa lagu dhisay markii inta lagu dhisay waxa dhacday markii anagu meesha aan nimid waxa soo baxday lacagta waxa lagu shubay amal 2000 qofka amal ku shubay receipt buu keensanay dad tira badan baa noo yimid oo 100 guri ka badan waxaan niri waxaan u baahanahay rasiidyadan dawladda hoose iska daayay keena kuwii amal baan niri 141 qof oo amal ku shubtay waa noo timi 100 guri meesha ka dhisan marka halka marin weyn waxa noqotay 41 guri hor le inaan dhisno dadkiina qofkii raahno 141 dan aawad cilin waxa bixisaan ala 600 inta kale dawladda ku darto arrintaasi maamulkeeda hore oo la galay baa aad u khatar waxa sababtoo ah in lacag 300 oo kun 400 oo kun oo dollar la yiraahdo dawladda hoose baa heshiis lagu galiyay bixinaysaa waxa runtii sahlan ma ahayn waa dawladda dhaxaanba 400 oo kun mashruuca fulin karin taas waxay sababtay deyntii markay soo istaagtay dawladda dhexe heshiiskana dawladda dhexe waxa ka gashay wasiiradii guddi wasiiraha oo xitaa iga horreeyaan wad qasaa heshiiska galay dawladda dhexe ku khasbanaatay in lacagta keento marka ka bacdi waxay noqotay dawladdu waxay tiri waxaan ku diin baxnaa dhulka marka la iibinayana waxa iibiya dawladda dhexe iibisa aniga awood aan dhulku iibiyo ma waliba iyo ku ogolaado marka dhulka saasa loo duruuftaas loo gaday guddi wasiiraa iyo xildhibaanaha waana gaday kolleede waxaan iga ballaarnaa way qabasho macnaha iibintooda dhul aan uma iibin karo waa marka laga hadlo awooddeeda ma aha magacayga waa xaamid suldaan waxaan ka mid ahay ururka shaqaamayaasha dhalinyarada gobolkan ee hormuudka horumarka waxaan rabaa su-aalahaygu way badnaayeen laakiin waqtiga oo sii gabaabsi ah iyo dadka oo badan inaan ku soo koobo 2 su'aalood 10 ka badan baa ii qornayd laakiin waa soo koobay waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamuud yaasiin barnaamijkii DDR-ka 5-year plan-ka ma dejiseen haddii aad dejiseen ma ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka dhalinyarada odayaasha culimada ismada something sharci sama tahay inay ka soo qayb galaan number 2 waxaan rabaa inaan weydiiyo
aaway madaxa mashaariicda dowladda hoose waxaa ognahay low number 7 waxaa ku qoran in 30% mashruuc dakhliga dowladda hoose uu ku dhaco madaxa mashaariicda hadhow ay ka kulmaan goluhu ilaa 20 golo ama ka badan kadib la yiraahdo maxaa ku haboon oo lagu qaban karaa masaajid baa lagu dhisi karaa wada lagu dhisi karaa ceel baa lagu dhisi karaa qof naafa baa lagu diri karaa dhaqaatiir caafimaad iyo lagu diri karaa marka aaway madaxa mashaariicda dowladda hoose waxaan rabaa inaan ku darsado waaxda fayadhowrka xildhibaankeedu golaha joogtada uu fadhiistaa laakiin ma lahan maaragtay agaasin iyo xafiis iyo male markii dowladda hoose aad timaadid kama dhex arki kartid ururka waxaa lagu daraa qaybtan arrimaha bulshada fayadhowrkuna waa ogtihiin muhiimadda uu noo leeyahay marka waxaan rabnaa inaan ka dhex aragno dowladda hoose waaxdii fayadhowrka iyo madaxii mashaariicda iyo barnaamijka DDR-ka saddexdaas su'aalood baan qabaa mudana gudoomiye waa bogaadinaya shaqada wanaagsan ee u haysid gobolka Mudug sida ognahay magaalada Gaalkacyo soolaro badan baa wadooyinkeeda ku xiran soolaradaas dhamaanteed si u wada ognahay way cidladeysan yihiin maxaa wax uga qaban laadiin shirka DDF-ta oo 5 sano oo qorsheynta ah si saamax loogu talagalay laba qaab bay kala yihiin naga filashada inta badan 5 sano lagu sameeyay waxa sameeya qolyahan JBLG-ga lagu sameeyay 5 sano laakiin anaga hadda waxaan filaynay TIS plus iyo UN-ka iyo qolyo kala duwan oo ayaamahan dambe macnaan nabadda Gaalkacyo soo ifaysa jirish mashaariic ka qayb qaadanana rabay in ayaguna ku darsadaan marka kaas wasaaradda iyo waxa wada sameynay iyo dowladda hoose qaabka loo sameeyo wuxuu ahaa ku salaysnaa xaafadaha in laga soo qaado iyo tuulooyinka in la tago dadka la soo weydiiyo barnaamijkaas marka asbuuc buu qaatay in magaalada Gaalkacyo loo tago laan loo tago baahiyooda la soo weydiiyo markii ugu dambeysana ansixin buu leeyahay sina sharci ansixin leeyahay shinta waxa kale tuulooyinka xaafadaha iyo baaskala ansixintiisa baahiyaha anaguna waxaan leenahay inaan soo kala hormarino baahiyaha la soo qortay sanadka inta la qaban karo oo aan leenahay waa heli kartaan mid iyo 2 3 4 5 6 inaan soo kala hormarino si ay u kala muhiimsan yihiin inaan keeno iyaguna ansixinta ay leeyihiin waa la soo sameeyay la tashigii laamaha salaamatiin waxaan rabaa dhowr su'aalo oo kooban inaan weydiiyo mudane dowladda hoose jenaraal marka laga hadlayo shaqadeedu waa nadaafadda iyo shaqaalaha rayidka u shaqeysa inay mushaaraadkooda siiso waxaan ognahay dowladda hoose sanadkii aan kasoo gudubnay 17kii ma jirin xaquuq la siiyo shaqaalaha dowladda hoose hadday noqon lahayd askar iyo hadday noqon lahayd ciidan mana jiro hadda saan noo sheegtay waxaa tiri shirkadda waa kabnaa mana muuqato kamniin ay ka muuqato shirkadda caafi dakhliga dowladda hoose oo xaafadaha markay qashinka ka qaadayso dadka ayaga lacagtooda la baxa suuqana sidoo kale meelo yarba inta la soo suuqa kala qaadaa haddii marka amnigii waa aragtay dowladda hoose oo maalin walba inkastoo ay percentage u yaryahay haddana dadkii maalin walba waa dhimanaya waana la dilayaa marka dakhliga dowladda hoose hadduusan cashuurtii yani waxa weeyaan arrimo bulsho ku bixin hadduusan ku bixin mushaar bulshadii qofkii soo shaqo tago bulshada hayso qaadan hadduusan qashin ku bixin xagee galaa meeshuu baaba u baahannahay qodobka labaad aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye soolarka waa laga hadlay kala fadhiga golaha deegaanka sidii loo furay Gaalkacyo ama intii loo doorteen markii lagu doortay baa u dambeysay mar kale oo isna inta la furay aan soo dhamaan la xiray maaqa wax ku dhacay xagee ku dambeeyay kulli deegaanka kala fadhigoodii mana jidhamiyaan wax shuruuc ay ansixiyaan oo ay soo saaraan golaha deegaanka waxa looga tagay inay dadka matalaan fariistaan shaqeeyaan shaqadooda xagee ku dambeysay ta kale shirkadda aad ku wareejiseen qashinka way qaadaa waxay ku shubtaa meelahan deegaanka oo dhan bay halays waxaad arkaysaan maada magaalada markay ka baxday meel cagdhigtin male waa wada booraysan yihiin maxaad u samayn weyneen monitory oo aad uga qayb qaadan weydeen inteeda u dambaysa waxaa weeye mudane haddii qashinkii lagu fashilmay dhaqaalihii dowladda lagu fashilmay amnigii lagu fashilmay maysa habbooneyn inaad tiraahdo anugu wax waa qaban waaye nabadgelyo reer Gaalkacyo qof
iga soo haysan keensada. Assalaamu calaykum warahmatullahi. waxaan rabaa naafada markii la yiraahdo waxaan ahay dhakhtar dadka naafadaan dabiibaa dhinaca kalena sport markii la yiraahdo hadda sportigan ka mid ahay saxaafadana waxaan ku leeyahay saaxiibo fara badan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane Tumey qoondadii miisaaniyadda haweenka dhalinyaradii sportiga naafada saxaafadda inta waa cabanayaan qoondadu waa ka cabanayaan maalin kasta waxa weeyaan waxaad ku arkaysaa cabasho fara badan baad ka arkaysaa marka waxaan rabaa insha Allah qoondadaas ay ku lahaayeen haweenka iyo dhalinyarada iyo sportiga iyo naafada iyo saxaafadda waxaan rabnaa dowladda oo si ay ku maqan tahay wayna ku leeyihiin insha Allah waxaan rabnaa inaan mataqaanaa in badanna waxa weeyaan anagu u qareemeynana xafiiskaaga waa nimid caawana waxa weeyaan dadka hortooda iyo saxaafadda inaa ka sheegtaa arrimaha duwaalimo hadda gabadhii hadlaysa oo kale waxay sheegtay layarka ka hadashay layarka magaalada waa dansan yihiin dhammaantood shirkad baa jirta magaalada layarka qaabilsan shirkadaasi dowladda hoose wada shaqayn ma leeyihiin mayay ku warjin kartaa layarka iyo magaalada inay meelo layrar ka samayso oo wada shaqayn la samayso iyo inay sida magaalooyinka kale oo hadda Puntland ka jiro kale inay layarkii meelaha streedo waaweyn oo kale ay layrar ka sameeyaan saddex su'aalood kadib baan gabdhaha siin doonaa wax yar noo dulqaata su'aalaha inta badan waxay la xiriiraan wax qabadka ka muuqan waayay arrimaha bulshada iyo amniga buu yiri wiilkaasi iyo shaqaalaha mushaharkooda xagee bay martaa lacagta dakhliga soo gala dalka gudoomiyana wuxuu waliba kan fadhigana wuxuu weydiiyay arrintiisu ka hadlay iyo shaqada qabanaysan gudoomiyana wuxuu weydiiyay oo la socotaa arrinta ku saabsan qoondadii bulshada buu yiri baan cabasho ka jirta oo hore uga hadalnay iyo arrinta la xiriirta wadooyinka iyo dab la'aanta magaalada shirkadda dhinaceeda wada shaqaynaysan ka jirin intaas u soo koob arrinta waxa uu maraya ii sheeg oo ninka dhalinyarada hore uu weydiiyay aad ugu faraxsanaa dareenkiisa inuu muujiyo si kasta oo arkay أنا waxaan aaminsanahay gaalkacyo maanta wado qurux badan inay saaran tahay amni darro igama muuqato dhibaato igama muuqato waxaan aad ugu faraxsanahay ugu qanacaa runtii markaan dhex maro markaan arko meherado badan oo la furayo ganacsi badan oo ka jira ismiyaal badan oo ka socda sanad ka hor waxaan xasuustaa markaan garow tago runtii aad baan murugoon jiray markaan arko dabaqyo badan iyo guryo badan oo dhisayo gaalkacyana hal guri aan xitaa la dhisan taasina waxa ku tusaa amniga xal halka waxaan la joogay 5 saac 4 saac la joogay jaamacadda Baraani iyo martino oo marqaatiga ahaa dhalinyaro galmudug ka timid 5 star ka timid inay halkan la joogtay wali aan intaan raacay xaafadooda geeyay marka amni kama jiraahay waa hadal aan meesha ku jirin way tagalo oo nadaafada ana ka faalooday oo ciladaha naga haysta anaaba ka faalooday mid la weydiin ma xitaa ku daray xaqay waxaan maleynayaa inuu goob joog ahaan jiray aniga aan dawladda ku jirin ba xogteeda ogaa waxa jirtay shirkadda korontada inay rabtay inay ku samayso magaalada street lights wadooyinka hadda solarkan la sheegayo iyada rabtay inay geliso meelo badanna waa gelisay maalmo ka bacdi waxaa dhacday in shirkaddii loo hanjabay oo al-shabaab u hanjabay inay dhaheen kala bax markay sadkeeyeen waxay ka qarxiyeen maxaa la yidhahdaa ii sheeg ترسم ترسم اللي كقر حين أو شدة كبيرة إرتدوا كيا لزمها يقرح غرفتين واحد سكوت يعني ورديان غير كثير ورديان معقول ونقوي وحنقولنا وطن كان مركي لنا عصري هذا حكمين كتيرته وحنقولنا كان عصتو إن إنسان وليه اللي بقول كي بقول أمن جود إن لقصه أو وعيالكها يقف قصة كان عصتا وحقه أمن جود سوي أنا ترى لابد أكون يسأل في هالرنتاس واجي اسكو دايday inay samayso shirkadda NEPCO way suurtoobid layrarkii ay samaysay dib u la baxdo oo lagu khasbanay dib u la baxdo ayaan dhaweedo aan u tagay inaan soolaradaas wiishka u yaala inaan samaysto waxay haddaan wiishku siin karno anaga awood karno inaan wiish bixin karno saddex waxay tuseen qolba inta furan waxay tuseen 300 oo street lights oo xareysan kuwana ku safilaan anaa kala tashaneen bay dhahay laakiin yaa damaanada bixinaya inaan shirkadda geeyo dhulka loo gooyo waxyaalahaas waxa la mid ah runtii waxa uu kalifeen shaqada aan qabanayo 80% in amniga geliyo si loo gudbo waxaan
gudoomiye waxaa leedahay shirkadii nalka xidhaysay baan damaanad qaadi karin nalka ii shaqeeyo oo aan nalkeedii cabsi u cabsatay dartiis guryaha ku haysata waxaadna leedahay dad baan halka ka kaxeeyey oo magaalada geeska kale u tallaabsiiyey amni darteed labada kee saxan gaalkacyo marka la yiraahdo anaa ku faansiinaya labada amni la yiraahdo marka hore aan bilowga hadal ka faalloodo amnina waxa weeye waa amniga al-shabaabka marka la yiraahdo amniguna waxa weeye gaalkacyo amniga waxaan ku raadiyay sheeg ay jiri jirtay qofku inuusan habeenkii dhaafi jirin xerdayax inuu sheego oo ka baqi jiray kala xiraanta magaalada amniga maanta gaalkacyo ku dhismayso oo ay ku faanayso waxa weeye kan kala xiraanta magaalada weeye kay ku faanayso ku dhismayso ka burburin jirin oo kaas kan kale wuxuu daba joogaa labadooda isku xiran yihiin markuu kaasi hagaago oo amniga labada dhinac la midoobo baa kaasina hagaagi doonaa waxaan mireynayna waa amniga la midooyo laakiin ma dhaci karto magaalada inaan dhinacna tegi karin dhinacna amniga suu karti wax dhici kara maaha labadaas isku xiran yihiin insha allah waxaan rajaynayaa sida kaa loo dhex jumaaxayo saddexaad iyo afraad in saas loogu dhex jumaaci doono jacfar wuxuu weydiiyey dhowr su'aalood oo saarsaaran marka koowaad horta wuxuu yidhi cabashooyin badan bay ku soo dhacaysaa cabashooyinka horta annaga nagu soo dhici lahaayeen gudoomiyaha degmada ah jacfar anu waxaan aqaanaa gudoomiyaha dudmudug waxaa jira gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha jira haddii sport loo baahan yahay cabashadiisa ka imaanaysaa xafiiskii ku soo dhacaysaa haddii maxaan ku raahdaa ii sheeg ay naafada noqoto ururka naafada wuxuu leeyahay gudoomiyuu leeyahay ka bisha casmaa waxaasoo dhan marka la isku duuduubo cabashooyinkani horta sax ma yihiin hadday sax yihiin meeqa bilood baa ka maqan saxaafadda marka la yidhaahdo saxaafad lafteeda gudoomiye leedahay sax ma yihiin cabashooyinkan qoondada ma helaan mise ma ay helin markii la weydiinayo qof wax u baahan intaas bilood ma ay helin kaasi ma helin laakiin in la yiraahdo cabasho noocaas igu soo dhacday madud mudug bay ku dhacday mise waxa ku dhacday degmadii وانا بوغادين يا شوغان دبراني شو سؤال شاوتو حوي قدوميا ويدينيا magaalada waxa ka jira waqtiyada roobaadiyada meelo biyo fariisada marka maxay wax uga qaban weysa dawladda hoose maxaase idinkaga qorshaysan hadeer magacaygu Cabdullaahi Cali Samatar waxaan ka waddan leeyahay Australia halka waxaan ka furnay ganacsi ma jirtaa waxyaabaha oo dadka ganacsatada ah dhul la siiyo ay gashtaan ganacsigooda qalab joogta talabaad dadka dhulka iska haysta oo cilada ah ma ku soo roogi kartaa inay iska bixiyaan canshuur sanadkii mar ilaa wasaaradda maaliyadda ka qaata lacagta wasaaradda maaliyadda shaqo kuma lahan dawladda hoose muu madax bannaantihiin canshuurtiina in aad ka goostaan horta waxaan aad ugu faraxsanahay sida laab xarnaanta oo dhalinyarada iyo gudoomiyuhu u xisaabtamayaan marka la yiraahdo degmo waxa laga qabto haday tahay mashaariic cusub la fuliyo iyo haday tahay maintenance ama dayactir wada burburtay nal kharaabay waxaan ognahay in uu baahan tahay dhaqaale oo tiro badan waxyaalaha adduunku ku xisaabtamo sidii naalo kale looga doodo oo mataqaanaa looga xisaabtamo duqa waxaa ka mid ah canshuurta laakiin dadku waxay ku dagaalamaan inay yihiin canshuur bixiyayaal taxi payers arrintaas xataa haddii maxkamad ama meel uu geeyo waxaa ku dagaalamay canshuur bixinayta marka su'aasha dhalinyarada dadka anagu waxay tahay soo qaybgalayaasha ma nahay canshuur bixiyayaal buuxa ma marka qaarkood waxaan arkaa gaariyaal barmuudeynaya oo dhinaca kala maraya war maxaa dhacay markaan ama anigu xataa aan la socdo iima canshuurna gaarigu marka su'aasheedu waxay ku wajahan tahay ma nahay canshuur bixiyayaal su'aasha labaad duqa weydiinayna waxay tahay sidii la rabay ma uga heshaan reer gaalkacyood canshuurta ama santiin qaxootiyada iyo dadka danyarta oo abaaruhu soo gaareen oo meelaha ku hareeraysan magaalada maxay sugayaan oo halkaa ku sugayaan maadaama uu maayirkii yahay haddayse wax sugayaan maxaa meel habaysan maayirku u geyn waayo oo dadka loo dejin waayey si dadkii ay u kala faa'iidaystaan su-aasha saddexaadna waxa weeyaan arrintan wadaynta ku saabsan oo maayirku ka hadlay oo labada dhan ah dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug gudoomiyaha xoogaa eedayn baa jirta asna waa ka hadlay eedaynta waxa weeyaan dhinaca Puntland gudoomiyaha lagu eedaynayaa inuu dhankaas la jiro inta badan ma dadkaana nabadda diidan oo saas ula jiraa jawaabta koowaad oo ah biyo fariisiga magaalada gaalkacyo biyo fariisiga marka la yiraahdo waxa la dhigi karaa waa
markii la yiraahdo baahiyaha one bay noqotaa markasta baahiyaha laga hadlayo sidoo kale markay noqoto caqabadaha haysta markii amniga laga soo tago number 1 bay noqotaa kolle intaas oo caqabadaha markay jiraan horay iyo hadda wax garan kartaan isku day inuu jiro marada caqabadu ay mar walba soo taagnaan jirtay magaalada sida ognahay waagi hore markii la degayay dhinacan waxa garan kartaan caska inuu ka qurux badnaa deegaankiisa laakiin halkan waxa loo soo degay waxay ahayd biyo fariis u ahaa oo biyo loo soo xusho biyaha loo soo xusho halkan loo dego waxa dhacday waagi hore xilliyada hore oo ilaa xad muddo hore waxa jiri jiray biyo biyooliyo biyaha inta badan qaadi jiray wallo aan xasuustaa in muddo biyahan in caqabado soo badanayso laakiin sanad ka dambeeya way soo xumaanaysaa sababtuna waxay tahay magaalada biyo booliyaashii ugu muhiimsanaa oo dhan waxay noqotay in boosas laga dhigtay inta badan magaaladiina dhismihii inuu caburiyay marka magaaladu waxay noqotay meel cabursan oo biyihii haddii xitaa roob yar qabto ay biyihii dhan fariisanayaan xaafadaha qaarkood khatar bay ku jiraan markii roob badan doo runtii waxaan kaloo ognahay magaaladu biyaheedu inay dhow yihiin hotel Seyran oo hadda derisna laha oo kale biyaha fariistay oo underground baa biyaha fariistay marka waxyaalahaas waxay ku tusayaan arrin halis inay jirto okay sida loo qaban karaa waa arrin runtii taagan weey una baahan sida hadda cawaala aan ugu gurmanayno inaynu isaga ugu gurmano waayo lacagta lagu qiimeeyay waa ilaa 2 milyan 3 milyan u dhaxaysa waxa garan kartaa marka baahinta leegta aysan hadda aan dhahayn dawladdu hoos lacagta bixinaysa ma filayo dawladdu hoos maanta hogaaminayay iyo kuwa iga dambeyn doona sadaha tameynay arrinta la dhihi karo way ku filan kadeen hal abuur waa la sameyn karaa oo sida in laga helo fan meel kale dadkuna ay tabarucaad sameeyaan laakiin arrintaasi xujada ugu weyn oo hadda wala rabo in sameyso noo dhaxayso USA waxa dheen 70% hadaan keenno 30 keeniga dhanaha baan niri 30 waxa la rabaa sida cawaalo uga urursan hadda inaan sii bilowdaan inuu ka heshaan arrinta qurbajooda dhulka la siiyo su'aashaas horta wax badan bay ugu badatahay Denmark baa hadda Copenhagen baa tagay waxay aad u weydiiyay dhul ma nasiinaysan dawlad deegaanka dhul bay siisay dhulka galkacyoodna markii aan laga leexleexan xaqiiqda ilaa iyo bacaadweyn waa cabiran yihiin dad buu cabiran yihiin laakiin xalal badan oo la heli karaa jira maalin dhaweyd booliiska Soomaaliya ay yimid oo kasoo ayagu marka dhul raadinayay qaybtan isku darka isku dhafka dhul buu raadinayay waxa dhinacaas xaafadda dhinaca dhul baan ka soo helnay la soo siiyay dhulna siiyay su'aal wixii leeyahay waxay ugu adkaabay ahaayeen runtii markii soo shalay diinay go'aan baan qaatay dhul baan tagay 200 loo cabira safar loo baan jiray ninkii lahaa ayuu waxaan ku yiri dhul dawlad loo baahan marka waxa ogaanaysan horta inay fududahay in qofka dhul la siiyo hankaas wuxuu igeliyay in ka soo u baahan tahay tilaabo ka soo marka waxyaalaha noocaas ay qaadayso aan garan karno waxa ka iman kara in aad looga fiirsado oo dhul in la raadiyahay wada dheer loo marayo haddana dadka ilaahay wasiir heel xildhibaano iyo ismada arrinta kala hadlay maadaama su'aasha ay u soo noqotay qurbajoogta kaliya ma aha laakiin haddii xitaa haddeer mashruuc ballaaran la helo markii laga rabo xeryahan Sinai iyo kabida oo iyagu ognahay sababta wax ku dhacay sababaha ku dhacay ognahay mashaariicda qaar in xeryaha la heli waayo ama culays ka yimaado in loo waayo waxay tusinaysaa in aan helno aska dhul oo hadda dhibta jira waxay tahay dhulkii dadka in laga wada qaado iyo in laga iibsado wax ka dhaxay maadaama qof inta dhulkiisa ka qaadid kii dariska ahaan u diisid u qaliysid waa cadaalad darro weey dhibkuna ku istaagi may taas marka waxaan tusay oo dawladdu u bandhigay iyo ismada in dhulalkan awalba la iibinayay magaalada dhexdeeda intii dhul la iibiyo kun caskaas meesha ugu fiican laga jaro arrintaasna ismada iyo wasiirada iyo waxba madoo joogay ismada ugu dambeyn ka ballan qaaday in dhul bixinayaan
arrintaa markii aan soo qaadnayna qofkii ugu horreeyay oo nagu soo dhacay wuxuu ahaa farmaajo oo yiri gaalkacyo guri ka degaya ka dhisanaya marka dhulkaas arrintaa way nagu taagan tahay insha allah qurba joogtana marka arrintaa ku guuleysan dhul inaan u cabirnay noqonaysaa waxaan weydiinayaa guddoomiyaha su-aal ah adiga baan ku aragnaa maxaa ku dhacay xildhibaanadii ay shacabku u doorteen inay u dhaxeeyaan adiga iyo shacabka duqa caawa dhan baa la jijiiday laba su-aalood baan weydiinayaa anigu qiimeyntii la sameeyey degmooyinka puntland ee annual isheeg performance assessment resultskii gaalkacyo waxay noqotay degmada ugu heysay halka bayla ay kaalinta afraad gashay ay doono in ayagu khaldanaayeen iyo in anagu lownahay guddoomiye tahay inaan meel noo soo dhib barnaa tan kale mar jacfar su-aal ku weydiiyey waxaad tiri qolyaha cabanaya mudud way u cabanaya haddana waxaa noo cadaysay mar dambe inaad xafiiskaba tegin oo halka aniga waxaa iga soo baxday wixii cabanayay meesha inay ku lagoy jireen tan kale aan rabo inaan ku weydiiyo midda ugu dambaysa awood ma u leedahay guryaha magaalada ku yaala guri kaste hortiisa reerka degan inay irid banaanka layr ku xiraan reerkii damiyana lagu soo saaro ganaax si magaaladu ay u noqoto iftiin gebigeedba waxaan su-aal baan weydiin lahaa oo ah dadka qaxootiyaasha ah oo meelaha durduurka fog degan arday baa joogta aan awoodin inay soo raacaan beelada lacagska aan hayn iyo dad dan yar oo magaalada degan marka ma heli karnaa ma dhici karnaa inaan nimanka darawaliinta sharci la soo saaro oo arday uniform qaba inaysan dhaafin maadaama ay dad jecel wax bartaan jiraan aysan lacagta ay beelada kusoo raacaan aysan awoodin aniga arrinteedu waxay la xiriirtaa istaraatiijiyad ay ugu yartahay istaraatiijiyadda ferry 5-year plan inuu jiro oo waxaa laynoo sheegay in dhulalkii dowladda hoose dhulalkii dowladdu lahayd la wada qaatay waxaa laynoo sheegay qaarkood in la gaday waxaa laynoo sheegay inaysan jirin in la waayay goobo dadka ganacsatada ah la siiyo magaaladii waa ballaaranaysaa maayar dadkii waa badanayaan dowladda hoose ma u qorshaysay dhulalka bannaan ee magaalada ka baxsan inay samayso goobihii isbitaallada waxbarashada booliiska waxa inay samayso mid kalena waa raacsanayaa oo ah arrintii la xiriirtay waxa la yiraahdo nabadeynta markaanu aragno nabadeynta dadka ka qayb qaadanaya gaalkacyo aad baan dhinacyo dadka qaarkood ay u dhaliilayeen tusaale ahaan isdhexgal dhalinyaro iyo systemka halkaa laga wada wanaagsan yahay laakiin maysan ka habboonayn in odayaashii dhaqanka bulshada qaybeedii kala duwanaaye kale iyaguna ay ka qayb qaataan oo markaanu aragno odayaasheedii waaweynaayo xagga ka shaahaynaya kuwii waaweynaayo xagga ka shaahaynaya oo idaacadaha awal isku marin jiray colaadaha iyo waxaa markaanu aragno iyagoo nabad ka shaqaynaya dee wax badan oo hididiilaa baa dadkii soo gelaya su-aasha kood waxa weeye waa dhacaas waxaa jiri jiray arrin ah qof iska soconaya gaari wata inta loo yimaado in gaariga laga dejiyo gaarigii qofkii laga dhaco ama isagiiba xataa uu khatar galo arrintaas waxa weeyaan in cid loo soo qabtay maana arag waa dhexaasa muddo socod hadday soo laabatay waa cusubta layrarka waxay u baahan yihiin hadda ka hor waa tii la sameeyey kacdoon loogu xirayo dadka xaafadaha degan haddii kacdoonkii waagii hore oo kale la sameeyey in layrarka lagu xiro waa samayn karnaa waa wax suurtageli kara laakiin ma jirto baaxad awoodada inta leego qof walba gurigiisa horkiisa layr lagu xiro laga qaado waxaan la daala dhacaynaa in ay noqoto qof walbaba in macna adag tahay in qof walba canshuurtii laga qaadi lahayaa dadka marka in layr ku xiro la yiraahdo oo amar lagu siiya dadka amarkaas sida fudud ku qaadanaya laakiin si kacdoona haddii dadku ay ku wada qayb galaan oo loo baraarujiyo waxaan leeyahay tii hore waa ka qayb qaadanayaan inkastoo ogahay haddii la barnaamijka hal la galo dib ha loo galo rag badan oo jecel hadda in layr guryaha lagu xiro inay ka gaban doonaan beri galabna arrimo noocaas loo balansan yahay suulo loogu balansan yahay kacdoonka noocaas ninkii rabo inuu layr guriga ku xiro ka qayb qaato oo xiniyaha isku haya waa sugaynaa inuu nagala qayb qaato arrinta ah duud mudug iyo xafiiska ma tagtaan arrinta waxaan leeyahay xafiiska haddii xitaa anigu aan ka maqlahay xoghay uu leeyahay ku-xigeen buu leeyahay waaxda arrimaha bulshadu leeyahay waaxda dadka waxyo badan buu leeyahay marka aniga keligay maaha in cabashooyinka soo gaaraan xitaa arrimaha bulshada marka la yidhaahdo waaxyo loo sameeyey leedahay waxyahaas geysan karaan
arrinta su-aasha kaloo ah dhul in la helo su-aasha ka jawaabay qorshaha dhul in la helo waa waayo qurbo joogta meesha ku jawaabay in dhul loo baahan yahay dhulkaas ma qurbo joog kaliya saahayne loogu baahan yahay markii dawladdu la rabo inay wax dhisato ama wax la siiyo meesha ka dhisan lahayd ana arrintan su-aashan waxa kaga jawaabay in dawladda dhexe ay awood ku leedahay arrintaas ilaa iyo heer siman aan la hadlay inay ay dhul macnaa kun ama ka badan aan iibsano ka qaadistaasi waa dhib badnaanaysa waayo dhul qaar lagama qaadi karo qaar loo badin karo odayaasha maxay nabadda uga qayb qaadan waayeen odayaasha nabad baa ka qayb waxaa jira guddi 25 oo la soo xulay oo labada dhinaca oo isimada hoos taga marka waa ka qayb laakiin kalsoonida ah odayaashu inay intay sida dhalinyaro hadda ay sameynayaan ama maamulku sameynayo halkan intay ka tahay xaq inay ku soo caawiyaan isku meel ma gaadhisan qofka dhalinyarada macnaha energy ku jira iyo kalsoonida uu qabo iyo qofka weyn fahamka uu ka qabo isku mid maaha qofka weyn waa qof waa yaaraga cabsi badan iyo khatar badan buu ogyahay laakiin qofka dhalinyarada waa dhiiran yahay karti buu leeyahay meel buu tagayaa taas marka waxay keenaysaa laakiin odayaasha ku jiraan maanta ugu dambeysay odayaal ka socda dhinacaas baan dhinacan ku wada qadaynaynay galabta dhan wada joogno marka way jiraan dadaalka laakiin sida aan jeclahay waxay ahayd in xagga laga wada cawiyo xaggan laga cawiyo qofna qof ka xayn gaariyaasha la dhaco arrinta ah waxaa jiray xilli baabuurta dhici jirtay waxaa dhacda runtii inaan hadda ka hor aanu daawateen ma aqaane nimankii ugu waaweynaa tuugada inta badan gaari markay dhacayaan xiriir waxaa jira labada dhinac oo xagga ay ku noolaan jireen saddex dhowr nin oo ugu waaweyn oo soo qabanaa jirta oo mid lugoona wuxuu ugu ahaa laadarka ugu weynaa ninkaas markaan qabanay ilaa nin madaxweyne ku xigeen uu qaraabo ahaayeen oo hoos gala wax ka saan ku bixinay ciidanka sulafka booliska oo ku soo qabanay miidiyadan keenay oo xirxiran oo kooxa waa laga reystay laakiin warkay soo gaaray ugu yaab badan waxa yahay waxa la yiri nimankii dib ay xabsiga uga fakadeen waxa sala yaabana ninkii lugta goona meeshuu ka baxay oo xabsiga uga fakaday waa su'aal ii taagan weeyaan laftigaygu waxaana la rabaa aniga sidaas su'aal ay weydiinaysaan taliya xabsiga ugu yeera kan qaybta u yeera gudoomiyaha gobolka u yeera maxaan ku raay sheeg dhalinyarada maxaan ku raay gudoomiyaasha u yeera dadka loo wada yeero waxa jira waxyaalo maxaan ku raay sheeg dadka qaar kood haddii la weydiin lahaa ay ku adkaan lahayd baa laga yaabaa runtii dayactirka laamiyada barnaamijkan haddaan ka hadlayay oo ah laamiga dhexe laamiga weyn qaabka macnaha aan ku helno waxa weeye waa dayactir laamiga dhexe oo waxa loo goleeyaan waxay tahay oo dawladda hoose leeyahay ha samayso waxaa rabaa in lagu baro dayactirka laamiyada loo sameeyay JBLG si in lagu tababaro waa loogu talagalay inkasta oo ay qalab u baahan tahay laakiin farsamooyin badan oo laftiga hadda waxaan bartay laamiyada maxaan ku raadin sheeg gacanta looga qaban karo oo haddii xitaa isku abaabulno dhalinyaro ahaan haddii la isku abaabulo laamiga weyn oo kale la tago barnaamij waxaa jira intii laamiga meesha uu ka go'an yahay godka kaga yaalo baa la qodaya waa la dhaawacaya markii laga saaro wax wasaqda dhan ciid baa lagu shooyaa waa la jugeynaya markii la jugeeyo daamurkaaga waxa sameynaysaa inta digsi ku karisid asoo karsan digsi kugu daboolan baa geynaysaa 2 senti baa ku buuxinaysaa ku garaacaysaa marka waxaan rajeynayaa inay shaqada wada qaban doono waxaan dhiirigelinayaa gudoomiyaha shaqada wanaagsan uu ka wado degmada Gaalkacyo mar kasta waan dhiirigelinayaa waayo qofkeena wax qabta haddii aan dhiirigelin wax qabadkiisa la arkin oo mar kasta la eego waxyaabaha maxaa la yiraahdaa uu ku xun yahay xumaantiisa waxba nooma soconayaan marka waxaan qofka waa bilaadan waxyaabo badan uu ka khaldami karaa marka waxaan ku bogaadinayaa inayna eegin waxyaabaha khaldamay hadda ma rabin inaan wax badan dhaho laakiin halkan waxa soo istaagay maadaama aan aqoon jirin gudoomiyaashii hore oo Gaalkacyo xukumi jiray oo ka ahaan jiray duq degmo camal hadda waxa fursad u yeeshay markuu Maxamuud Yaasiin Tumay noqday gudoomiyaha duqa magaalada Gaalkacyo in asagana barto magaciisa inuu yahay duq magaalo waayo ma kala aqoon jirin ba duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka laakiin alxamdulillah hadda markuu noqday Maxamuud Yaasiin Tumay duqa magaalada Gaalkacyo waxaan kala bartay inuu jiro magaalada jirto gudoomiye iyo duq degmo waxaanan fursadda uga faa'iideysanayaa inaan gudoonsiiyo hadiyad
aad baan kaga mahad celinaynaa sida aad u farsamada ugu jirto ee soo koobtay jawaabaha barnaamijkii Dabarani Show-na toddobaadkan inta ayaanu daawadayaal kusoo gabagabeynaynaa waxaa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Yaasiin Axmed Tumey oo ah gudoomiyaha degmada Gaalkacyo hayaan iyo Dabarani Show oo Gaalkacyo barnaamijkan si wada jir ah ugu sameeyay ayaa waxaanu hawada idinga macaasalaamaynaa barnaamijka oo aad kala socoteen Somali Cable TV waa baahda Somali Cable oo idin leh nabadgelyo